سل التاريخ يعطيك الجواب ويفتح من قصور المجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولكن Abdinasir Dayib وإذن الله سو دوادا waxaan maanta ku soo gudbinayaa insha Allah kulana wadaagaya dhulalka islaamka dhul kamida oo ah dhulalka la boobay ama gaalada ay xog ku haysato. Jazirada Al-Qiram ama Kirimaya waxay dhacdaa waqooyiga badda madow. Dhanka bari waxa ka saaran badda Azaf dhulka ay ku fadhido waa 26 kilomitir square. Caasimadda waxa lagu magacaabaa Sifranbal. xilliga Uthmaniyiintana waxa lagu magacaabi jiray Aaq Masjid oo ay macnaheedu tahay masaajidka xad marka loo macneeyo luqadda tartaarka. qarnigii 19aad ay Ruushka qabsadeen Jazirada markuu soo dhamaaday dagaalkii labaad ee caalamka. qabiilka tartaarka ayaa gaarsiiyay diinta Islaamka waqtigaas oo ay ku dhaqnaayeen Jazirada dadka kala yimid Talyaaniga iyo Greeka. qarnigii 7aad ee Hijriga waxa ka dhashay dawlad weyn oo Islaam ah midaas oo ku soo rogtay lacag Jazirada laga qaado gaalada ku dhexnool dalka Islaamka. waxaana ka talinayay suldaankii la dhihi jiray Kiray. waxaa Jazirada Al-Qiram soo maray 47 saldano midaas oo sababtay in Islaamku uu aad ugu faafo Jazirada Al-Qiram. loolan dheer ka bacdi dawladda Moscow waxay soo qaaday weerar wuxuushnimo midaas oo sababtay in malaayiin qof oo muslimiin ay ku nafwaayaan. sanadii 1917 midowga Ruushka wuxuu saaray cunaqabatayn Jazirada 5 sano oo kaamil ah midaas oo sababtay 60,000 oo qof inay ku nafwaayaan gaajo darteed. sanadii 1945 ayaa waxaa lagu qasbay shacabka muslimiinta ee reer Al-Qiram si qasab ah inay u barakacaan loona haro dhulal dhaca qaaradda Yurub. Samaadir wuxuu ka mid ahaa dadkii goobjooga u ahaa gabadfalkii dhacay 1945. Они пришли, это в то время, когда уже все спят, все уже дома собрались. جاءوا في الظلام عندما كنا نائمين في المنزل. دق 3 جنود روس باب بيتنا. anagoo jiifna saddex askari la soo garaacay oo hubaysan waxayna amreen inaan banaanka u baxno si nala musaafiriyo. waxaan bilownay qaylo iyo wahin. aniga iyo hooyaday ayaa meesha ku sugnaa. laba kamid ah walaalahay waxaan geynay dariska. waxaan maqlayay oohin ilmo yaryar oo naaska nuugaya. muddo ka bacdi gaajo darteed bay u dhinteen. ka bacdi waxaa dhintay caruurtii. ka bacdi waxaa dhimasho bilaabay dadkii waaweynaa. بكاء الأطفال الرضع وكيف اختفى بكاؤهم بعد فترة بسبب موتهم، وبعدها مات الأطفال الأكبر سنا، وبعدها بدأ المسنون يموتون. هجاج gabagabadii walaale Al-Qiram oo kaliya ma ahan dhulka maqan. waxaa jira dhul aad iyo aad u badan oo muslimiinta gacmahooda laga saaray oo gacmaha gaalada ku jira. haddaba waa su'aal Al-Qiram iyo walaalaheed yaa u maqan, yaa u hiirinaya, yaa soo celinaya. waxay ka rabaan waxaa weeyaan duca iyo hiir walaal. waadna mahadsantahay. وليس موتي في حياتي مرة لما لا يكون ختامها استجهاديا لما سمت